السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلامتين صاحبي الدمانتين ميل كستو aad joogtaan soo dhawaada waxaan baranaynaa nouns magacyo magacyadu way badan yihiin common noun ayaa jiro proper noun ayaa jiro abstract noun material noun collective noun way badan yihiin laakiin waxaan si gooni ah uga hadlaynaa hadda common nounska magacyo guud common nouns waxaa la magacyo si guud ahaaneed magac uun laakiin aan gaar loo lahayn nouns ayuu leeyahay divided into common nouns and proper nouns magacyada waxaa loo qeybiyey ama loo qeybiya kuwo common ah oo caan ah oo la yaqaano oo guud la wada wadaago oo meel kasta laga heli karo and proper nouns iyo kuwo qaas ah oo gooni loo leeyahay common nouns magacyada guud words waa erayo for people oo dad ay leeyihiin ama dad la dhihi karo sometimes animals xayawaano ay qaadan karaan places goobo ay qaadan karaan or things ama shayyaal ay qaadan karaan these are words for people and kuwani waa erayo dad ah they are common nouns haddana waa magacyo guud waay tusaale waxaa ka mid ah artist ayaa ka mid ah qofka sawirada yaqaana sida wax loo sawiro gacantiisa wax ku sawiri kara ama farshaxanistaha loo yaqaano waxaa ka mid ah labadani qof oo midna clown midna acrobat ah oo labaduba shactiroolayaal iyo dadka ka qosliya ah waxaa kaloo ka mid ah astronaut ayaa ka mid ah qofka dayax gacmeedka ku duula ama loo yaqaano another word for astronaut is a spaceman or space woman waaye spaceman waa la yiraahdaa ka astronautka space woman waa la haday dumar tahay waa qofka dayax gacmeed ku duula waay halka waxaa la yiraahdaa ayada word file waa qaanada erayada waaye here are more words for people waa erayo badan oo dad ah ama dad quseeya actor waa jilagi aunt waa habaryar ama eedo baby cunug baker dube ama qofka foornada ka shaqeeyo cook waa cunto kariye dentist waa doctorka ilkaha doctor doctorka caadiga ahaa giant waa haliyey ama qof oo hero ah ama qof dhaxalga wax badan wanaag badan qabtay la yaqaano lawyer waxaa lahaa qareen ama abukaate judge garsoore nin nurse kalkaaliye caafimaad police officer sarkaal police waaye singer waa heesa soldier askari teacher macalin intan waxaa waaye waa common nouns especially common nouns for people waaye maaha common nouns oo animals ah things ah places ah but just waxaan ka hadalnay peopleka dadku waxa common noun ka noqon karo haddii magacyo caadi ay yimaadaan cabdiraxmaan iyo xasan iyo maxamed geediye hadday yimaadaan kuwaasi common noun lama yiraahdo proper noun lahaa waa u tegi doonaa waa hagaag waxaan kaloo aan hadda qaadanaynaa wuxuu leeyahay these are words for animals waa erayo xayawaano ah they are common nouns waana common nouns waaye magacyo gooni ah ama gaara waay ama magacyo guud waay sorry eagle waa galeer zebra dameer farow deer deero bird shimbir crocodile yaxaas bear waa bear ama nooc ka mid ah xayawaanada wet file maxay yihiin marka the wet file are here are more words for animals why cat yaanyuur cow sac dog a dolphinka you know dolphin of Somali ma aqaano laakiin baddu ku jira sida malaygu u samaysan yahay waana nooc ka mid ah xayawaanada banaanka imaan karo oo kalluunka caadiga uu ka duwan yahay dadkan wuu fahmi karaa oo sometimes uu ciyaara waa la tababari karaa waxaa la sheega dadka markay badda dhib ku qabaan hadduu la kulmo inuu caawinayo si biyaha ugu saari lahaa so dolphin allah duck waa boolo oo duck boolo fish waa kalluunka caadiga goat ari goose waa boolo badeed labada boolo dabcan way kala duwan yihiin hen waa digaag ama dooro horse waa faras mouse dooli parrot shimbir baqaaq la yiraahdo shark libax badeed whale
waxaa la nibiri amaba se nibiriga dabcan isna baddu ku jiraa sida malaygu uu samaysan yahay aad buu u weyn yahay laakiin waana nooc ka mid ah isagana waxaa waaye xayawaanada badda waayahay let's go on hadda waxaan qaadanaynaa markaasi these are words for places they are common nouns waa magacyo balaysyo ah haddana common nouns ah waa magacyo maxaan ku irahdaa goobo ah haddana magacyo guud ah oo beach oo kale xeeb waaye park waa goob dalxiis okay and shop dukaan waaye library waxaa waaye maktabad hoosta wax kale maa ku jiro maya dheh dhinacan wet fileka waxaa waaye airport garoonka diyaaradaha ama madaarka diyaaradaha ay ka degaan kana duulaan cave god waaye church waa kaniisadda farm beer hill waa taag ama meel buur ah hospital isbitaal hotel house guri island jasiirad halka iceland ma waa island mall waa mall market suuq mountain waa buurta caadiga playground waa playground ama barxadda lagu ciyaaro restaurant maqaayad school seashore waa xeebta midka beachka iyo midka seashoreka way kala duwan yihiin seashore waxaa la qeybta carada iyo dhagxaanta ah ee badda u dhow waxaa la yirahda beachkan waxaa waaye meesha maxaan ku irahday beachka waxaa la yirahda meesha lagu dalxiiso loo tago dalxiiska xeebta ah laakiin seashoreka maaha halkaasi meel waxaa jirta mid waxaa jirta costa la yirahdo costagan isagana waxaa waa xeebta dhanka oo meesha biyaha ay ku jiraan laakiin xeebta u dhow meesha lagu damaashaado ayaa la lahaa so intaas waa kala fahmi karna stadium waa garoon oo garoonka lagu ciyaaro kubadda cagta iyo waxyaaba lamidka supermarketna waa suuq weyn ama dukaan weyn temple waa macbad waaye zoo xerada xayawaanada halka waxaan kaloo aan ku baranaynaa words for thinkers ama common nouns for thinkers ama erayo common nouns ah haddana sheeyaal ka hadlayo so basket dambiil waaye bed sariir waaye drum durbaan cake doolasho blanket busto gate ganjeel ama iridda weyn ah guriga bag boorso magacyo kale oo sida loor ama joan waa la yirahdaa box waa sanduuq bread roti can waxaa la weelashan oo kuwa maaragtay oo birta ah haddana sometimes aanan bir ahaan karin wax ka jilicsan ah ama ha lagu keeno cabitaanadan oo acidka leh ama qaarkood saliida lagu keena qaarkood waxyaabahaasa lagu keena marka kana lahaa chair kursi waaye waxaa la yirahdo maxaan ku dhahaye coat waa sariir koob desk miis xafiiseed door albaab egg ukun kite cabitey ladder jaranjaro lamp laambad picture sawir radio television train track gaariga tragga maxmuulka watch saacad window daaqad next waxaan leenahay markaasi exercise one exercise one so just we are going to take only the exercise one baan qaadanaynaa underline the common nouns in these sentences ayuu leeyahay common nounyada ku jira jumladahani hoos ka xariiq there is a little bird in the garden who is your teacher. Don't eat that rotten apple. Kate has a lovely doll. I like reading stories. My father is a doctor. Every child has a dictionary. Riley hates bananas. The phone is ringing. Here is a book for you. Okay. had marka waxaan fiirinaynaa common nounska meesha ku jiro jumlada koobaad oo kale there was a little bird in the garden waxaa ku jirto bird iyo garden labadan erey ayaa waxaa la yidhahdaa common nouns tan waa who's your teacher ayaa wuxuu yahay common noun
don't eat that rotten apple. Apple ayaa waxay tahay common noun. Inta kale ha sugin. Kate has a lovely doll. Doll keligeed ayaa waxay tahay common noun. I like reading stories. Stories ayaa waxaa la yidhahda common noun ama common nouns. My father is a doctor. Father iyo doctor labadaba waxaa waye waa common nouns. Every child has a dictionary. Child iyo dictionary waa common nouns. Riley hates bananas. Bananas bis ayaa common nouns eh. The phone is ringing. Phone ayaa common noun ah. Here is a book for you. Book ayaa common noun ah. aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. aan intaan ku kulmi doonno casharkan kiisa xiga waxaan idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.